بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta ay taariikhdu tahay 19 bishii saddexaad 2024 shirka jaraa'id waxaan u qabanaynaa markii aan u dulqaadan weynay u adkaysan weynay aan fiirsan weynay dhibaatada ay qabaan shacbiga ku nool degmada Waaberi gaar ahaan markii aan aragnay dhibaatada ka jirto degmada waxaan isa garanay odayaashii biskuitiga degmada ee marjac ahaa inaan wada kulanno oo shirka jaraa'id soo jeedino. Bismillah. waxaan ahay ninkii lagu soo magacaabay wadadan hadda la dhisaayo ee via Moscow iyo via Uganda gudoomiyaheedii ahay waxaan ay magacaabay gudoomiyaha degmada Waaberi markuu in magacaabay kadibna waxaan u soo jeediyay koongareeskiisa inay raali ka yihiin magacaabidaas oo magacaabay waxaan ka codsaday in la ii madax baneeyo dhalinyarada la shaqeysay deegaanka ku dhalatay leh khibrad iyo cilmi badan ay shaqadoodana tahay waxa aan dursanayno aqoon dheer ay u leeyihiin. waxaan shaqada bilaabnay 12 bishaan waxaan la joojinay 19 bishii la soo dhaafay. saas darteed waxaan mar walba gudoomiyaha ku dhici jirnay sida shacbiga looga dhaqmayo taas ilaahana la xisaabtamaayo maadaama mas-uuliyiintii nahay waxaa dhici jirta dad subaxii sida loo keeno ilaa iyo duurtii aan meesha ku hayna amarkiisaan ku haynin qaarkood waxaa dhici jirta inaan mootobajaad saarno ayagoo meesha kuma tagaayo ku shubmaayo tacbaan ah. arrintaas aan sheegayno dabagal waa lagu samayn karaa. muddo kadib intaan shaqada joojinin dadkii afar aan shaqays laayra ah qof computerka loo fadhiyay qof magaca dadku qorayay qofna wuxuu lahaa soo dhaweynta qofna dadku fariisanayay oo insha Allah oo dadaalkaas aan wadnay wax walbana wuxuu ku soo baxay sharci ah dokumenti ah waxa intaas weelayso lacagta akoonka aan ku shubay la basreedkiisa anaga ma bahaynaa gudoomiyaha degmada haysa waxaan sameeyay marka anaga wixii baxay iyo isoo galay si aan ku ogaano asiga ma ogolaan intaas laakiin anaga waxaan sameeyay qoraal cadeynaya bayaan ah wixii maalintii la qabsado lacag dadka ayagoo nidaam ah soo dhaweynayna ka qaadi jirnay wuxuu nagu amray laamiga cidda saaran in laga qaado $3,000 ah kan ku dhiga 2,000 kan ku sii dhigan 1,000 wixii ka sii dambeeyay 500 300 wuxuu dhigi qoraalkan waxa keegis marna lacag loo baahan lacag maalintii koowaad inta aan shaqada bilaabin waxaan u dignay duqii magaalada Sheekh Badaale waxaan dhahnay saan ku jiro waan la weydiiyay ayay hawsha la qabanaa akoonkii wixii akoonka aniga waxaan nagu qoray 3 xubnood oo kale sharci ahaan akoonka waxa loo baahan yahay in markiiba 3 qof ka bixiyaan. kadib wuxuu sameeyay waana wacay koongareeskiisana qaar ka mid ah joogay wuxuu dhahay dadkaan kula shaqeynaa fanta shuruuf la baxaan shaqeynaya sabab hada markaas waxaad diidan tahay nidaamka aan wadna adag soo jeedaan marti nidaamkan anagana ma kula shaqeynayno dokumentiga meesha u soo dhigay maalin walba waxa uu soo gudbiyay wixii aan lacag qaban waxaan qabanay ka bilaabo 12 bishaas ilaa 19 keedii $6,290 marka dokumentigadan waxayna cadaan ah waxa dadka lagu sameeyay waa u dulqaadan weynay dad in albaabkooda lagu jibiyo dad maxaan ku iraadayaa albaabkooda xal guriga ku jiro gudaha katiina loogu dhifto waad aragteen idaacada laga soo deeyay shacbiga reer Waaberi oo ka cawanay marka maadaama suuliidii aan ahayn in anaga waajibkeena gudubna lagu waajibto waxaan fariin u diraynaa duqa magaalada oo aan ku ognahay in cadaalad u dhow ma u dulqaadan karayno ma yeelayno waxaan ka codsanaynaa madaxda dawladda ugu sareysa madaxweynaha iyo wasaaraha iyo baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka waxaan idin sheegaynaa madaxweynahayni dal xoreeye waatii hore uu yiri wiilkeeniyo yaan dhiiqa lugaha lagu gelin madaxweyne aday ku haysataa maanta yaan dhiiqa lugta lagu gelin shacbiga iyo waxa la isku horkeena dawladda ka hortag arrintaas ka hortaga kulana waxa la raadinaa dhiiqa lugaha lagu gelin iska ilaali waxaan nahay shacbi dawladda jecel leh aqoon dheeraad ah
waxaan soo jirno dagaaladii soomaaliya ka dhacay ahliga ahaa waxaan ka mid ahaa raggii furay wadad unisheef waxaan ka mid ahaa dagaalada markii socdeen waxaan furay isbitaal kumeel gaar ah oo la dhaha gargaarka degdega iyo daryeelka carruur taasoo ugu talagalaynay dadka wax soo gaaraan ilaa habeenkii inaan xamar waxaan ku haynay masaajidka caliboolay kawaa ku yaal mudana madaxweyne ra'iisul wasaare ra'iisul baarlamaanka labada aqal waxaan idinka codsanaynaa dowladda iyo shacbiga reer waaberi in laiska horkeenaa la rabaa ka foojignaada waxaana waxaas wada